doorashooyinka ma aqan dhaqankan Soomaalidu kororsiga meesha ka keentay waxba la kordhinaya dunida ma ka jiro dictatorsku ma kordhiyaan waqtigeeda ku qabtaan wadamada dimuqraadiga ahina ma kordhiyaan imika for example America waa dimuqraadiyadda ugu weyn dunida la yiraahdo dagaalkii ugu xumaa 1860 American Civil War ka socda doorashada la qabanay oo madaxweynaha lagu dilay Abraham Lincoln 1930 iyo 33 iyadoo wasaaradii iyo depressionkii ugu xumaa Mareykan soo maray oo cunto iyo shaqo iyo nolol la waayay ayaa hadana la qabtay dagaalkii labaad ee dunida isagoo dagaalkii socda ayaa 1945 iyadoo nuclearkii la isticmaalayo doorashada ka hor la qabtay dagaalkii labaad adduunka socda Ingiriiska dagaalkii labaad isagoo socda ayaa la qabtay doorashadii markaas waliba waxa laga helay xisbigii conservative-ka ee Churchill guuleystay ee guusha dagaalka labaad keenay baa laga helay dadna Clement Attlee oo shaqaale ah helay marka dunida iyadoo dagaal socda doorashada la gala laakiin inaga dictatorskuna 5 sano markay dhamaato doorashada way qabtaan si ay sharciyadu helaan inaga qof rabo inuu meel iska fadhiyo sida dhagaxa waa xoog ma sharci maaha wuxuu ku fadhiyaa sharci maaha waxa weeye kursiga laga ma kicin karo nibaba waa igu yiri inuu maxad noo maagtaa markan kororsiimiyo waxaan ku yiri waxaan u aqaan qof xoog ku fadhiya qof inta teeramkiisa aniga maxad igaga duwan tahay waxaad igaga duwan tahay teeram anigu suuqan jooga Soomaa teeramka aad haysato ee 4 sanad igaga duwan tahay hadda intaas dhaafto isku mid baynu nahay waxaad ku fadhidaa wax xoog sababta kororsiga ay keenis marka xaalad ay dhacdo oo dagaal oo dalka u galo laakiin waxaan ka hadlayaa dagaalkaas in dalka u galay oo doorasho dib u dhacayso dagaalku waa total war wax la dhaho dagaalku ma aha dagaal hal deegaan ka dhaca ama hal degmo dagaal beled xawa ka dhacay doorashada dib looguma dhigi karo laakiin total war dalka oo inta lagu soo duulay dagaal galay inkasta oo 1964 Cabdirashiid markii dagaalkii uu socday Itoobiya iyo Soomaaliya dagaalkii labadii dagaal ugu weynaa Soomaaliya gashay mid kamid ah wuxuu yiri gacanna waan ku codeynaa gacanna qoriga waan ku dagaalamayna hadeeg gacanna waa lagu dagaalamaya gacanna waa lagu codeynaa hadda dagaalkii weynaa 64 iyo taasaba soo martay dalka laakiin u malayn maayo suurtagal maaha dawladda shaqooyinka loo diray waxa kamid ah amniga xasilinta amniga dhisidda ciidamada dalka shaqadii dawladda in lagu la xisaabtamo haday ka soo bixi weydana lagu dhaliilo dareenka waan arkaya dawladdu ciidan ma dhistay hadhowto marka musharaxa xukuumaddu u yimaado waxa uu la shir iman doonay kamid tahay ciidan Soomaaliyeed baan dhisay amnigii waxaan ka qabtay waxaan achieve gareeyay goboladii sidan taasi waa shaqo kale oo amni oo taala laakiin doorashadu waa shaqo kale oo madax banaan oo sideeda u taagan oo sharciyad ku siinaysa aad ku noqoto madaxweyne senator xildhibaan